السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا سلام يلبا الدنيا كنوشين إلهي سبحانه وتعالى وحنا بري أمني إيمان ونكسن السيون ورنتي كما أنتي ويلي جوار مركي وذا شكستان أما وقت قروح بدن إيه وذا هجان وقت يجينا كل ما ذا قول درا أما إسكدو عيسو حرير كي قروح بدنا على بدأ سقف نحمر عين كما أنتي وحي سمينا يعني مركي كلا حران كدي قف كلا أيو دليل عيا وحوليه ويل كلا جاي إن على كل أنتي تراد ونيوم حريركينا كودا wuxuu ku leeyahay wiilka gabadhan waqti fiican aan galiye lacagan si shoobina u sameey hebelo waan ka dhac kala saas ee taa gabdhaha Soomaali gabdha xun waay way khiyaantay waxyaabo la midoolay sidoo kale gabadha marka ay weydiiso tiraadid wiilkii maxaa xariirkiina ku dhacay wuxuu ku leeyahay si daacada u jeclaaday waqti fiican aan galiyay waan kalsooni fiican si jacayl wanaagsan saas ee taa wuxuu awaal dar iga dhig inuu iga tago taana waxay noqonaysaa gabadhina inay ka caawdo ee tiraado aniga rag Soomaali rag xun waa ama jaceelko idil maba sameeyay hadii wixii ka dambeeyay xariir ma sameeyay maahan inaad niyada dishid oo inaad guul dareysata isku qirtid ama naftaada guul daraa soo hoodid waxa deelay kartaa tusaale ahaan qofkan adiga aad waqtiga wanaagsan aad la wadaagto oo waqtiga quruxda badan aad geliso oo juhdiga faraha badan aad geliso oo aad ka sugaysay waqtiga quruxda badan iyo ixtiraamkii wanaagii jaceelka asaga aasiis aad ka sugaysay meel lamid inuu ku siiyo hadii aad ka weysid ogow waxa adiga taa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaamay haniye jabin qofkan ka tagay waxa ugu tagtaa success leh farxad ku sugooti nolol wanaagsan u rajeey adoona si xumeeyeen hadii ay dhacdina qof kale noloshaada ku soo biiro juhdigii aad gelisay qofkii hore mid ka badan gali kan waay sababtay waxa laga yaabaa qofka inuu garto qiimaha adiga aad leedahay farxadda aad ku haminaysay in ka badan inaad kala kulantid laakiin hadii aad guul dareysto aad waa guul dareysato aad niid jabtid oo qof walba u malaskii hore tagay inuu kan la mid yahay taameenis meel sare ma gaarayso noloshaada hamigaagana marinaysid rajada adiga aad leedahay iyo farxadda aad ku riyoonaysid mihir galayso hani jabin ee qofkan waxa laga yaabaa inuu qiimahaada garto ixtiraam ku siiyo farxadda ku haminaysid mid ka badan ku siiyo tusaale ahaan hadii kii hore oo ka tagana dib inuu ku laga yaabaa inaad tahay qof aad u qiimo badan oo yiraa hebel am heblo wallahi qof wanaagsaneed ana qof xun noqday bari oo kacdo inaad tahay qof wanaagsan wanaagana wuxuu hormarinayaa shakhsiga adiga aad tahay hadii aad noqotid qof wanaagsan oo qof walba oo xumeeya xataa wanaag ugu bedelo kuna hamiyo inuu marba noloshiis hormariyo oo guush oo ku haminay inuu gaaro aad ku fikirtid marba aad ku fikirtid of course waxa noqonaya qof guuleysta marba haniye jabin hadii aad ku heshid sababtee waxaad wax ku darsanaysaa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaamay inta adiga aad dareemaysid ama aad aqli leedahay ama aad dareen leedahay ama aad murugootid ama aad farxad qof intaas ba dareemay aad rabtaa nolol inaad la wadaagtid wax fudud maaha markii waxay u baahan tahay juhdi fara badan iyo samar iyo dulqaad fara badan adiga marba naftaada guubaabina inaad guuleysanaysid waxbaan ku sheegay wiilyo adigan kula talinaya gabar marka aragtid waa muraayado kale muraayada dhulka hadii lagu dhufto noqonaysa of course way jabaysaa gabadha qalbigeedana waa sida muraayadii kale muraayad dadka anfacaad yeelataa way iska dhaxarkaan qofka dhalbisku ku toosisana ama uu isku qurxinaa sidoo kale gabdhaha waa muraayado kale waa iska dhax arkaysaa sida adiga aad u wanaajisid inta wanaajisa ayaad ka dhax arkaysaa wixii ku magaysaa ama ee taqaana adiga qiimaha leedahay hadaad wanaajisid waxa isku dayaysaa inta wanaajisi in ka badan inaa ku wanaajiso hadaad qalbigeeda u dhawaatid waxa isku dayaysaa inta u dhawaatid in ka badan inay ku soo dhawaato farxadda daasiisana in lamada in ka badan ay ku siinaysaa qofka intaas macnaa wanaag ku siinayso hadaad si fudud ama qalbigeeda ugu jibis ama uga tagtay rumaantii waad guul dareysanaysaa gabariyay adigana haduu dhaco qof inuu adiga waqti fiican aad geliso farxad aad siisay jacayl aad siisay kalsooni intaas la eg aad siisay asagana oo abaalkaada ka dhigay inuu kugu abaal noqo oo ku xumeeyo oo ka tago ha ooynin hana murugoonin sababtay kan haduu qiimaha garan waayo mid qiimaha garanaa oo soo socda ee kaas daa aragtid qiimaha garanaay isku day juhdigii kii hore aad ku bixisay mid ka badan inaad ku bixisid kan ayaa abaal ka helaysaa inta aad gelisay in ka badan ku siinayo farxad inta ka haminays in ka badan ku siinayo
dareen iyo kalsooni farxad iyo isku duubnaanna aad ka helaysaa haddaad qof walbaba aad ku mitaashid kii adiga ku xumeeyo kaa tiga haddaad qof walba ku mitaashid daameys waa guul daraysanaysaa nolosha adiga aad ku haminaysid ma gaaraysid sababta jaceylka waa heybad ilaahay qofka jirkiisa ku beeray maaha wax ciyaar ah waxna waa jeclaan kartaa waxna waa nacbaan kartaa sida adiga u jeclaata ayaa lagu jeclaan karaa sida adiga lagu jeclaadana waxa u jeclaan kartaa jaceylka waa dareenka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka jirkiisa ku beeray marka ha isku day inaad guul dareysatid wiilio adigana waxaan kuugu waaninaa gabadhan walaasha ana qalbigeeda dhoortay mar walba inaa farxad iyo dareen iyo kalsooni iyo kalgacal intaba aad siisid sababtoo qofkan aad wax la qaybsanaysid waa gabar waa marna waa walaashaada marna way ku dhasho waa hooyadaada qalbigeedina ay ilaali sida ay leedahay ma qalbigeed inaa ku tumatid ama aad ku ciyaartid adigana guul dareysanin ayadina guul dareysanin waxaan in rajeynayaa inaad guuleystiin dhamaantiina farxad iyo reereen aad ku noolaatiin gobonimo